halkaas meeqaan marsiinayn subxaanallahi subaxdii 100 iyo galabtii 100 iyo alxamdulillah subaxdii 100 iyo galabtii 100 afar marsiinayna 100 ugu hadana awna 400 aysan 800 marayn adkaaruhu waa labo dhikri mutlaq macnaha waa mutlaq waxa loola jeedaa waqti gaar ah laguma qaydin oo laguma dhihin waqtigaas akhri عدد قارنا لغما دين عددكاس كا ee waxa lagu yiri dheh ajir iyo qeyrad ka dhigayda kaasoo kale lama tiriyo wala iska balbala maxaa kamid waxa kamid labada kalimo miisaanka ku culus inay agtiisa laga jecel subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim maxaa kamid albaqiyatu salihah subhanallah walhamdulillah la ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah maxaa kamid la hawla wala quwwata illa billah kanzu min kunuz aljanna wala iska daldala waxa jira adkaaro ilaa 1700 sheegi doono oo ayaga nabigu tirtiriyay sallallahu alayhi wasallam ayaga waa la tiriya 1700 24 saac ay ku jiraan waa la tiriya adoo danahaaga adduun iyo aakhiro ka shaqaysanaya qabsan kartaan soo ma jeedid dhikriga ugu fadliga badan ilaahay dhikri lagu xusana ugu sareeya wuxuu yahay la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir bukhari wa muslim waxay wariyeen min hadith abi hurayra nabigeena subhanahu yiri sallallahu alayhi wasallam qof alla qofka yiraahdo la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir boqol goor haduu subaxdii yiraahdo ama galabtii uu yiraahdo labada goor la iska rabaa boqol subaxdii iyo boqol galabtii wuxuu leeyahay shan aqimood shan uu leeyahay maalintaas nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam kaanat lahu mithlu ajli ajri qaadi hadii saxiixa waxa ku sugan hal adoon qofku haduu xoreeyo oo adoon ahaa adoonka uu xoreeyay xibin kasto jirkiisa kamid qofkan uu xoreeyay xibin jirkiisa kamid naarta looga xoreeyo hada waa hal adoon nabigu wuxuu yiri dhikrigaas boqol goor qofka yiraahdo 10 adoon isagoo xoreeyay la mid 10 uu la mid nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam wa kutibat lahu 100 hasana waxa kale loo qorayaa boqol hasano hayla boqol goor uu yiri hasanadii ugu hadda waxa lagu dhufanayaa 10 ugu yaraan oo kunay halkaas ka noqon nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam midna saddexaad wa muhiyat anhu 100 sayyi boqol dambina waa laga tira boqol hasanana waa loo qori boqol dambina waa laga tira nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam wa kanat lahu hirsan min ash-shaytan fi yawmihi dhalika hatta yumsi waxay u noqonaydaa boqol kaasu hirsi subaxdii haduu akhristo shaydaanki waa ka hirsi xirtay qofkaas waa ka ilaashay ila galabtii laga gaaray galabtii boqol kala laga raba oo caawa lagu ilaaliyo soo ma jeedid shan nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam wala yati ahad bi afdal mimma jaa bihi illa man qala mithla qawlihi aw zaad aw kama qala sallallahu alayhi wasallam nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam midda shanaad aakhira qof la imaan kara qofkaasu ajarka uu leeyid wax ka fadli badan ma jiro illa qof inta leeyid boqolki aad la timid wax ku daro maahan kaasu baa ka sar mari kara qof kale rijal laga maqo halkaas marka boqol subaxdii iyo boqol galabtii weey xadiis tambaan ku sheegi doona galabtiina waliba insha Allah dhikriga labaad wa subhanallahi wa bihamdihi nabigeena sallallahu alayhi wasallam hadiiska bukhari iyo muslim min hadith abi hurayra wuxuu yiri man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin 100 marra qofka yiraahda subhanallahi wa bihamdihi maalin boqol goor qofka yiraahda hudda khadaayahu wa in kanat mithla zabad al-bahr dunuubtiisa waa la daadiyaa waa laga ridaa hatta badda hirkeeda uburta iyo xubada haday la agto waa laga dhameeyaa imaam muslim ana saxiixiisa ku wariyay boqol subaxdii iyo boqol galabtii inay oo uu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam man qala hina yusbihu wa hina yumsi
سبحان الله وبحمده 100 مرة قفك الصباح دي مركو وابريستو بقول قريرا سبحان الله وبحمده قلبتي عصر كمركو تكذو يرادا سبحان الله وبحمده بقول قر قف آقر الليل هذا مجرى الليل وحكفض البلد إلا قف انت الليل وحكروا زيادة قدر صديق معها قال كاسنا مركو الله وبقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له صباح دينا وبقول قلبتينا وبقول سبحان الله وبحمده صباح دينا وبقول قلبتينا وبقول أفر بقول المرسينين نبينا صوبان صلى الله عليه وسلم حديث إمام النسائي وكوريين في عمل اليوم والليلة من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص والنبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها قفك إلهه صباح دي انت قرحت صبح وقت يروح قبل لابنا أدين كذب بمرك اللي أدين صباح أدين كدين أدين وبلابك قرحت يسمعه صبح انت قرحت صبح سبحان الله كريم سبحان الله سبحان الله لما دقيقة كيرا كل كرت بقولك سبحان الله بقول قرقف كيرا انت قرحت صبح انت قرحت دحين عصر كمرك اللي أدين قبل لابنا وقت انت قرحت دحين بقول قريرا كان أفضل من 100 بدنة بقول نيف أوجير أو صدقيستي كفضل بلد بقول قريرا حديث ثابت وحسن بقول نيف أوجير أو صدقيستي كفضل بلد هذا هو بقول ذكر إن لا ترتبك نفيري نبي غيري صلى الله عليه وسلم من قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها قفك يراجع الحمد لله بقلبه انت قرحت الصبح يا انت قرحت الضحى بقل قفك يراجع كان افضل من 100 فرس يحمل عليها وحي كفضل بدنت بقل فرس او صدقيستي هذا هو بقل وكفضل بدنت هل كاس ميقان مرسينين سبحان الله الصبح دي بقل هي قلبتي بقل يا الحمد لله الصبح دي بقل هي قلبتي بقلها أفر المرسينين بقول يقول هذا أو أنا أفر بقولنا يسني سديد بقولنا مرين نبي صلى الله عليه وسلم من قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها قفك الله أكبر يا رب قلبه انت قرحت الصبحين انت يصبحين كان أفضل من عتق 100 رقاب وهو كفضل بديه بقول أضون قف حريه وكفضل بديه وكفضل بديه وبقول الله أكبر وبقول به صباح دي بقول قلبتي ما يقان مرسينينا كن أم مرسينينا كن هذا النواحر نبينا صوبان صلى الله عليه وسلم حديث كمسلم كا استغفار تمالنتي بقول قار أي ليش في بعض الأحيان بقول قار لبا سيق لبا والله بكرة أستغفر الله وأتوب إليه إيوه سيق لبا رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم سيق كلام جرتبه وحضات حل مرتبة حتى ذنب كبير أحضار بشر الغلاف أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه كبير الغلاف بقول قروي استغفارتنا كل يوم بقول المرسينة شم بقول وكلا أولا صوشي من قدالا ودرين أول معي شمت الصلاة صلاة والمصوب بقول كم الدنبي شمت الصلاة صلاة والواجب صوب بقول كم الدنبي ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير حل مرها بقول له غدك شمتي بقول ما ودر ده كون يبقول هذا يسمى كون اللي بقول ما مرسيننا نبينا صوبان صلى الله عليه وسلم ما علينا جورجي سواحة فاطمة بنت رسول الله أيضا معناها جورجي الشقدي سكع بناير وقادون نبي وحق السيء إسلام نبي ما يسأل كل من نبي ومكان التاني والله ربطين نبي والله شيء حبين كمركو يودو جورجي وجودتي أيضا يحرم نبي دار الزوج دي
nabi wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam khaadun wax kaaga qayb badan ku sheeg markaad gobashiina tagtaan oo seexanaydaan 33 goor subhanallah iraad 33 goor alhamdulillah iraad 34 midaka 34 goorna allahu akbar iraad boqol mata haddii ilaahay taladaada aruuriyo xarimahaaga aruuriyo fudayd aad ku noolaan laakiin boqol qaadin haddii lagu keeno taladaada allah hadduu kala tuuro waxba kuma qaba kara dikriga allah la kaalmaysta halkaasna 700 sooma waa midka tirada ku soo aroori dikriga laakiin waxa weeyaan adkaaraha aan tirada ku soo aroorin ama boqolka kaliyana way waxaan hadda sheegay ee dikri badan oo kala inta iska duwanaajiyo صلى النبي صلى الله عليه وسلم نبي نصوبه صلى الله عليه وسلم وحير من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 حلمة قفك يقول صليا قرن قورا الله كصليا بل وحا تصورتا أذيك أدون كان أو رب العالمين كو صلينا وحا يقول قارا النبي قد كصلي صلى الله عليه وسلم وعن كلمة دي إذا كسو قتمنا ولا ريال إلهي وين والله النحريس بضان qofkii ilaahay weyna u furana dariiqada jannadu kabtiisa sunkiisa waa wadhow laakiin waxay u baahan tahay ilaahay inuu ku fahamsiiyo aziimo iyo go'aan inaad yeelato furaska aad heli kartana aad ka faa'iideysan ilaahay weyna asmaadiisa sifaadiisa waxaan ku weydiisanaynaa ilaahay inuu khayrka nawaafajiyo nagan aqbalo sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad